wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka kusoo dhawow Mami Academy waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno kusoo dhawow Mami Academy weecan mayno wahsan mayno بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته marka hore kusoo dhawaada akademiyada Mami Academy. Akademiyada caawa waxay bilaabi doontaa duruustii horey u ballan qaaday. Duruustaas oo aan ku bilaabi doono maadada biology-ga sharaxaadeeda qaybteedii koowaad. ugu horeyn haddii channelka aad ku cusub tahay kusoo dhawow, subscribe na saar, like iyo share asxaabta kale ee kuwa galaaska ah ama aad ku ogtahay in ay yihiin arday fasalka afraad dhigata ama form 4 ah u gudbi una sheeg inay ka faa'iidaystaan. Chapterka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa chapter 1 waxaana lagu daraasaday doona waxa loo yaqaano communication and coordination, taasoo micnaheeda tahay communication waa in la isdhaafsado xiriir inuu jiro, xiriirkaas oo u dhexeeya doona deegaanka iyo noolaha ku nool deegaanka ayuu u dhexeeya doonaa xiriirkaasi. Coordinationna waxay tahay in macnaha organizing lagu sameeyo, la habeeyo, la nidaamiyo informationkii ama warbixintii la helay si gadaal dambe ama mustaqbalka loo isticmaalo. Introduction ama hordhaca waxaa lagu baran doonaa in ay noolayaasha u baahan yihiin inay wax dareemaan si ay u badbaadiyaan noloshooda. Marka waxaa la yidhi animals xayawaanaadku waxay doonayaan oo ay u baahan yihiin mar walba to detect inay fahmaan oo ay dareemaan. Dareen keli ma ahane respond uu la socdo, jawaab uu la socdo. Jawaabtaas ay bixinayaan waxay tahay suitably, mid ku habboon to the change isbedelka in the environment ee deegaanka ka dhacay. Noolahan deegaan ayuu ku nool yahay, deegaankaas waxaa ka dhacaya isbedelkaas noocuu doono ha ahaado. Cimilada isbedeli kara, dab ayaa dhici kara, dagaalo ayaa dhici kara. Deegaanka noolaha ku nool yahay isbedel ayaa ka imaan kara, volcano ayaa dhici karta. Marka noolaha waa inuu dareemaa xaaladii uu ku sugnaa in laga baxay oo xaalad kale la galay, isbedel yimaaday. Isbedelka haddii uu yahay mid uu kusii joogi karo wuu joogayaa, haddii isbedelka yimaaday uu yahay mid asiga dhibaato u keeni karta ama suurtagal ay tahayba inuu ka badbaadin, inuu meesha iskaga tagaa. taas marka waxaa lahaa respond, waa in laga falceliyaa isbedelkii qofkaas ku yimid. Isbedelka uu bixinayana waxaa loo baahan inay ahaato suitable, mid ku habboon isbedelkaasi. Tusaale ahaan xayawaankan wuxuu ku noolaa duur ayuu ku noolaa. Duurkii waxaa ka dhacay volcanoyin ay dhaceen. wuu dareemayaa marka xaaladii marka hore barwaaqada nimcada lagu jiray in laga gudbay oo la imaaday xaalad dab iyo dhibaato ay timaaday. wuu dareemay marka laba mid waa marka respondiga waa inuu bixiyaa uu noqdaa suitable oo ah meesha inuu iskaga cararaa oo iskaga tagaa iska fagaareeyaa uu meel kale ku badbaadi karo raadsadaa. taas marka waxa loo yaqaan suitable. waxa ka soo horjeeda marka noole inuu meesha iska fadhiisto uu meesha wadki ku sugo geeridii ku sugo. marka suitable waxay noqonaysaa responsiga uu bixinayo xayawaankani inay tahay isbedelka uu dareemay mid ku habboon inay tahay in the environment deegaanka. xayawaanaadka marka kuwa yaraa jiro iyo kuwa waaweyn isku soo wada duub dhammaan xayawaanaadka waxay u baahan yihiin waxa loo yaqaan response. marka
high animals xayawaanaadka waaweynka meesha socon waxay tahay biniaadankan u soconaaye have evolved elaborating structures detection and coordination of the affecting responses. waxaa jiro xayawaanaadka waaweyn inay leeyihiin wax loo yaqaano developing, wax yani u horumarinaya, u suurtagelinaya in structureyo ama qaab dhismeedyo u suurtagelinaya detection inuu sameeyo, inuu wax dareemo, u suurtagelinaya oo ilaahay ku galadaysto, ku maladaystay. isla weliba waxay leeyihiin coordination, kuwa la shaqeynaya oo u safe gareynaya warbixinta ka timid affecting responses. meeshii yani response laga samey lahay inay la xiriiraan, dabaa taabad, dab gacanta in la hadlo, gacanta soo laabat, waxaas dhan gadaala laga bara doonaa. marka waxaa loo yaqaano irritability oo ah awoodda xayawaankan uu leeyahay inuu maxay ay sheeg dareemo deegaanka wax ka jira. in animals xayawaanaadka is brought about by the nervous system. warku wuxuu yahay in dareen uu yimaado, dareenkaas la dareemo kadibna laga falceliyo, jawaab laga bixiyo. waxaasoo dhan yaa u qabanaya jirka biniaadanka, waxaa u qabanaya habdhis loo yaqaano nervous system. habdhiskaas ayaa marka lagu bara doonaa jabtarka inta ka hartay ayaa lagu daraasaday doonaa nervous system. in higher animals such as vertebrate, xayawaanaadka waaweyn sida lafdabarada, irritability is brought about more elaborate nervous system ayaa ku shaqalay macnaha guud ahaan oo loo yaro neuron sensory. laba marka waxaa jirto system ayaa jirto oo jirka gudihiisa ka shaqeysa, system loo yaqaano nervous system iyo system loo yaqaano endocrine system. labadaas system jirka gudihiisa ka shaqeeyaan ayay ka shaqeeyaan, waxayna qaabilsan yihiin badbaadinta iyo ka falcelinta dareemaha kala duwan ee ka imaanaya jirka gudihiisa iyo midka ka imaanaya jirka dibadiisaba. the nervous system marka asiga waa quickest meaning system provides the quickest means of communication animals. xayawaanaadka marka nervous system wuxuu ka saacidayaa inay bixiyaan jawaab degdega, inay bixiyaan ayuu u suurta gelinayaa. sida marka sawirka noogu muuqata nervous systemka ayaa la kala qeybi doonaa, laba qeyb ayuu u kala bixi doonaa. guud ahaan cashirkeena qeybtiisa koowaad halkaas ayaan ku haki doonaa hadduu ilaah yiraahdo. qeybta labaadna waan soo gudbi doonaa habeenka xiga hadduu ilaah yiraahdo. intaasaan kusoo gabagabeynayna insha allah. wixii commenti ah, wixii talo ah, wixii tusaale ah, meesha aad noogu dhaafeysaan waa taqaanaan, waa meesha commentiga loogu talagalay. noogu soo reeb meeshaas, noogu soo reeb wixii talo iyo tusaale ah, noogu soo dhaaf. videogan la sii wadaag asxaabtaada, usii sheergareey si ay ugu faa'iidaystaan. waa akademiyada Mami Academy oo niga tagaysa haween wanaagsan iyo waqti wanaagsan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.